kaala yeedheen asagoo laga yaabo markaas inuu Itoobiya ka yimid oo safar ka yimid inuu yiraahdo dib igu dhiga arinta dib la igu dhigay heed ma sameeyne meeshii uu tagay meeshuu ku caytamay dadka dawladda ka soo horjeeda dhaqaatiiray u baahan yihiin oo waalan yihiin in la geeyo waayo dhaqaatiir meel caafimaad la geeyo war madaxweyne hadalkii waxaas ma ahan مناسبكنا ماشينا حتى ما بهانبا حتى ماشوا معهن مال لو هادلو ماشا سو كله او دad isbitaal ku furana ama meel ku furana oo lagu yeeray inaad tira xarigan ka jara inaad ma tira meesha waa u duceeyay waana maadsantiin dadkuna inay dadkan ku daydaan saatan wuxuu dhisay oo saatan wuxuu soo saaray ayaan ugu hambalyeynaya kana codsaa dadka dhan ayaa laga rabay ma uusa sameyn meesha ku caytamo sawir uu saga caytamay marka inuusan mas'uul ahayn inuusan dawladnimada waxba ka aqoon in meel isbitaal laga furo oo ku caytamo taas marqaati iga Soomaaliya caalamkan iga talabaad wuxuu yiri canshuurta hal kordhiyo hal qaado haye ma meel canshuur looga hadla meel canshuur looga hadla system meel looga hadla ma la 3 sano jooga 3 sano canshuur ay qaadayeen isbitaal lagu ma dhisin iskool lagu ma dhisin dadka danyarta oo la qaxiyay lagu ma deegaamin dad iskool looga ma bixin aeroboort lagu ma dhisin ciidan lagu ma dhisin dekad lagu ma dhisin dalka lagu ma heshiisin canshuurtii jidad lagu ma dhisin wax oo ku qabta canshuurtii ma jirto wax raada ma leh inta la qaado yaa hawada lagu qaybsadaa waayo haday raad leedahay cashuurta bankiga lagu aruuriya dhulka Soomaaliya oo dhan oo la dhiso dawladda ka ka dhistay cashuurta inta aruuriday oo bankiga ku aruuriday yaa dekedaha lagu dhisi jiray aeroboorada jidadka isbitaalada ciidamada xarumaha wasaaradaha meel walba lagu dhisi jiray wax raad ma ka tagay dhaqaalada ka tagi maayo dawladnimada ka tagi maayo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بمهدوين ولسوكو بكرين أي أصغناطي لوديكم لواتن يشنتي بشي فبراير وما أنت سيديد يطبنا ومالين ثلاثة إن شاء الله halka waxaan ka soo jeedinayaa anigoo ah Abdullaahi Maxamed Jimcaale oday Soomaaliyeed laba qodob oo iyo wixii kale oo dardaarankaygi qodobka koobaad dhibaatada dhacday oo maanta taagan madaxtooyada Soomaaliya sidii uu u yimid Xasan Macallin Gurguurte midka hadda filada jooga wax sharci hal saac laguma dhaqmin dhibaatada dhacday oo weyn meeshay ka timid waxa kamid ah asagoon wax dawladnimo waxba ka aqoon hal qalinku inta uu caanaha ka qaado dawladnimada kama yaqaano siyaasadana kama yaqaano ninka uu keenay oo ra'iisul wasaaraha huna asagoo la mid yahay ama ka sii liita kii gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabkuna waa nin hore loo yiqiin asaga Xasan Macallin Gurguurtaana hore loo yiqiin saddex aan wax islaamin oo mid u qalma inuu dal hogaamiyo iyo inuu sharci hogaamiyo iyo inuu xukuumad hogaamiyo saddexdooda midna uma qalmo dhibaatadaas ayaa dhacday waxa la yaab leh markaan ka soo bilaabo dalkii dhammaan waa kala tagay dhammaantiis waa kala tagay dhammaan dadkii shacabka ahaa ee Muqdisho joogay waa la barakiciyay waa la boobay hantidii dalka Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madoobe markay iskhilaafeen oo lagu doortay Jubbaland Ahmed waxa uu yiri wada hadalan diyaar oo qolada federaalka inaan wada hadal la galo ayaan diyaar u ahay inuu sa dawladnimada wax ka aqoonaan rabaa inaan sharaxo marka uu saas yiri ayuu yiri waaran ku jaray inta aanu adeer oo iyo maxkamadda gobolka jooga u yeeray oo yiri waaran soo jar asaguna waa saxiixay koriya shanbaxol iyo waxay ayaan ma aqaan ciidana ayaa raaska boori lagu daadshay
war adduunkii oo dhan dadkii Soomaaliyada wax garanayay dhammaan waxay dhahay war ciidankan meesha ka celi ninkaana wada hadal la fur wala wada hadal oo gol yahay ma yeelay hadda soo qabaha waa xira bab war joog war wuxuu saasmaan مدك سوق بتاع أحمد محمد إسلام ورعينا كيجعلية وهذا عضي إن مركي دجال دحي كنن وعينا كي سومالي ده هاي وحمر ديارة الله سوق هذا إن كي يسودي بين كنن أيك ينفتو دي يدريس كودي هبكي فده حتى أسيا كاني أسجع كاني يوحي لجوجي هدي الرئيس سار جرو معنا له هذا قدومية برلمان جرو هدي حكومة جرتو وحاسو ما بدي عمبا شو قال لي لا جوك وهكذا واحد انتي يا واحد جبلان قبطي او سوماليا يا حمر لو عليا لا دغ دنبيغا انت لاك اسغا غلاي وانا ان دنبيغاس حسن iyo wixii la shaqeynaayo waa in lagu maxkamadeeyaa qof kasta haday inta dambi gasho dalkan aan qof maxkamad lagu furo la arag qof la dacweyna la arag qof shacabka ah oo mudaharaad ah aan la arag oo sharciga ilaalina baarlamaan sharciga ilaalina aan lahayn waxa nagu dhacay horta waa sidaas ninkan dalka dhibaatada uu geystaan ku sheega waxa kale oo 10 mar ka soo hadlay oo dadka dhan ka hadleen sida sharci darrada Itoobiya u hoos galay iyo heshiiska aan jirin oo iska galay iyo mar walba inuu Itoobiya shushumina ku orda oo 10 konton dawladood oo wada dirsan inuu mid wax la saxiixana dhibaatada uu dalka u geystay shalay maalintii shalay niman dhalinyaraha meel isbitaal ka furanayay oo Muqdisho dhexdeeda markay furanayeen way u yeereen kaala yeedana asagoo laga yaabo markaas inuu Itoobiya ka yimid oo safar ka yimid inuu yiraahdo dib igu dhiga arinta dib la igu dhigay heed ma sameeyne meeshii uu tagay meeshuu ku caytamay dadka dawladda ka soo horjeeda dhaqaatiiray u baahan yihiin oo waalan yihiin in la geeyo waayo dhaqaatiir meel caafimaad la geeyo war madaxweynaha hadalkii waxaas ma ahan مناسبكنا ماشينا حتى ما بهانبا حتى ماشوا معهن مال لو هادلو ماشا سو كله او دad isbitaal ku furana ama meel ku furana oo lagu yeeray inaad tira xarigan ka jara inaad meel tira meesha waa u duceeyay waana maadsantiin dadkuna inay dadkan ku daydaan saatan wuxuu dhisay oo saatan wuxuu soo saaray ayaan ugu hambalyeynaya kana codsaa dadka dhan ayaa laga rabay ma uusa sameyn meesha ku caytamo sawirro isaga caytamay marka inuu mas'uul ahayn oo dawladnimada waxba ka aqoon in meel isbitaal laga furo oo ku caytamo taas marqaatiga Soomaaliya caalamkan iyaga talabaad wuxuu yiri canshuurta hal kordhiyo hal qaado haye ma meel canshuur looga hadlaa system meel looga hadla ma la 3 sano jooga 3 sano canshuur ay qaadayeen isbitaal lagu ma dhisin iskool laguma dhisin dadka danyarta oo la qaxiyay laguma deegaamin dad iskool loogama bixin aeroboort laguma dhisin ciidan laguma dhisin dekad laguma dhisin dalka laguma heshiisin canshuurtii jidad laguma dhisin wax uu ku qabta canshuurtii ma jirto wax raada ma leh inta la qaado yaa hawada lagu qaybsadaa waayo haday raad leedahay cashuurta bankiga lagu aruuriyaa dhulka Soomaaliya oo dhan oo la dhiso dawladda kacaan ka dhistay cashuurta inta aruuriday oo bankiga ku aruuriday yaa dekedaha lagu dhisi jiray aeroboorada jidadka isbitaalada ciidamada xarumaha wasaaradaha meel walba lagu dhisi jiray wax raad ma ka tagayo dhaqaalada ka tagi maayo dawladnimada ka tagi maayo mid kale oo aan rabo inaan qodobka kale oo aan galaa waxa weeye horta waxa la rabaa ninka kan waan aragnay horana waan u niqin ninkaanu waxa uu ka shaqeeyaa waa dan shakhsi dan ummadeed iyo dan qaran midna kama shaqeeyo 24 saac diyaarada u saaran yahay 24 saac kun dawladooda oo heshiis la galaa waxa heshiiska ku galay lama yaqaan waraaqa keeni maayo
وحدف كيني معيو وقولا والبا مافيا هشيسة ولا جلا قولا والبا صوماليا أيكو عدوها درسن هشيسة ولا جلا نيكا كان دالك انتا كبضا لقوما آميني كره مسؤوليتنا مالها baarlamaankii bisha 6 aan hadda ku jirno maanta 18 12 ka hor in la furay ahayd asaga xayiray oo diiday midka baarlamaanka ka madaxda ahuna mid mas'uuliyad baarlamaan yaqaan maahan sharci mid garanaya maahan waa mid aan waxba ka ogeyn sharciga baarlamaanka la rabaa inuu xeer jadinta iyo sharciga ilaaliyo oo marka uu madaxweynuhu oo meel foreign awda ku socdo sharci darro inuu ka qabto ayaa laga rabaa ma yaqaano waa lagu kor qubaystay markaas la leeyahay habeen walba waxaan beenta ii furi baarlamaankii waa kala taagan yahay halkan waxaan ku arkay baarlamaan tiro badan oo boqol ka badan mid walba wuxuu leeyahay heshiiska uu nala galay hatta markuu sharciga baabi'inayay waa nooga baxay dhulaan in siinaa uu yiri dhulkii asaga ayuu siinayay ma uusan siine markay wixii u saxiixeen la yiri dhulkii mar horeba madaxweynuhu gatay yaa lagu yiri oo lacagtii loo shubay baarlamaankii hadda waa godoodsan yihiin waa caraysan yihiin meel wax loo wada la yahay baarlamaan hadduu jiro jamaamiira iyo gudoomiye baarlamaan iyo ku xigaymo waxaan dhaca ma dhaceen dalku waa kala tagay Soomaali waxaan ugu baaqaa dalka Soomaaliyeed in la isugu tago meel walba la tago la badbaadiyo dalkan oo sidii dalka loo badbaadi lahayd la isugu tago inkastoo Ramadaan soo gala ilaahayna waa in la bariyo dadkuna waa inay isu tagaan oo dalkan sirdi heshiisiina oo Soomaaliya lagu badbaadina waa in la isugu tago mucaaradkuna si degdega waa inuu maaragtay u midoobo mucaaradka midba meel taagan yahay waxba ka imaamayaan hal la isu tago Soomaaliya ilaahay farad khayr qaba oo furo waxaan meesha joogana ilaahay wax dhaama ku soo bedelo hogaamiye cadaalad oo sharaf leh oo Soomaali maaragtay isku jiido walaalayo dib heshiisiin u furo mar walba bil walba ama labadii bilood gobol walba maaragtay shirku qabtan Allah u keeno sidaas aan ku dardaarmay anigoo ah Cabdullaahi Maxamed Maxaale farad khayr qaba oo degdegan Allah noo furo ilaahay dawladnimadana noo soo celiyo ilaahayna bariyaha sayga aqbalo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh